ujeedada koobaad ee shukaansigu dabcan sida qofka muslimka laga filayo waa guur. hadafku waa inuu guursado. mar waliba oo uu dheeraado shukaansiga iyo xiriirka, mar waliba oo qofba qofka kale uu ka ogaado ceebo, guri lagu waaro, aroos farxad leh, caruur baari ah, dhaxal waara laguma helo. ilaahay subxaanahu wa tacaala waxba lama aha qalbiga qofka bini'aadamka inuu saa u gediyo bayna usbuucayn min asaabici raxmaan. nin walba derbigu madax intuu kusoo garaacay 5 sano 6 sano 7 sano ayaa mid bil iyo 2 bilood la socda dhagdhag ilaahay intuu calaf ugu daray bum noloshiina saxda jacaylka saxda himiyo jacaylka jahanima ka kululo hore ayaa loogu jabay arrintaas. dhiiqo ayaad lugaha kula jirtaa. بسم الله الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله. برنامجka guurka iyo shukaansiga iyo waqtiga uu soconayo iyo wixii la midka ah waxaan u maleynayaa doodo badan ayaa laga samayn karaa oo qofba si ayuu u jijiidi karaa, laakiin aragtida aan rabo inaan idinla wadaago waxa weeye wax waliba waqtigiisu dheeraado waxaa soo baxa dulduleeladiisa, waxaa soo baxa ceebihiisa, mashaakil tira badan ayuu la yimaadaa. marka shukaansiga badan wuxuu la mid noqon karaa khasaaro badan oo ka dhasha. aan isla eegna marka aslan maxaa qofku ku qasba sidiisaba in uu horta shukaansi sameeyo. ujeedada koobaad ee shukaansigu dabcan sida qofka muslimka laga filayo waa guur. hadafku waa inuu guursado. marka factories iyo cawaamil tira badan ayaa saameyn waxay ku leeyihiin dhererka muddada uu qaadanayo shukaansiga isaga. masalan waxaa ka mid noqon kara waxyaabaha saameynta ku leh degdega qofkan ku jira ayuu noqon karaa. labada qofna waxaa laga yaabaa in uu rabo durbaba inuu guursado, qofna waxaa laga yaabaa in waqti dheer uu haysto iska haasaabo bilaash uu iska rabo. marka waqtigaas wuu dheeraanaya maadaama qof uu jiitamayo. waxyaabaha sidoo kale dhererka sahli kara waxaa ka mid ah kala duwanaanta diimaha, dhaqanka iyo wixii la midka ah. tusaale dadka gaaladoon muslimiinta ahayn shukaansigu inuu dheeraado, la isla noolaado, labadan ay boyfriend iyo girlfriend noqdaan waa u caadi iyagu. walidaalika muddadaas lagu jiro dhererka waxa ay samayn karaan iyagu wax alla wixii ay ku samayn lahaayeen guurka kadib. sidaa darteed wax ka maqanoo badan ma jiro. wax ay ilaalinayaan oo xeerinayaan oo ka cabsanayaan oo qawaacid ay u hogaansamayaanna ma jiro. cagsigiisa marka dadka muslimiinta diinta islaamku xuduudo ayay dejisay, process iyo hanaan in la maro ay tahay ayaa jira, waxyaabo la ilaalinayaa jiro. labadan qof markastoo sheekaysanayaan qaab ay u sheekaysanayaana jira. waxyaabahaasna saameynay ku leeyihiin dhererka iyo gaabnida. iyagu way u sahlan tahay inay sanado wadaan 4 sano 5 sano 6 sano. innaga laakiin dadka muslimiinta ah hawshaas iyada ah oo sahlan ma aha, sababtoo waxaan ka cabsi qabnaa inaan ku dhacno dambi, waxaan ka cabsi qabnaa xuduudada dejisnaa inaan gudubno. sidaa darteed shukaansi badan ama dheeraada wuxuu inaga noola mid noqon karaa khasaaro badan ama khasaaro muddo dheer socda. waxyaabaha saameynta ku yeelan kara waxaa ka mid ah duruufta labada shakhsi, qofkood ama labadooduba. masalan maaliyad ahaan bay isdiyaarinayaan. qofkan lacag ma haysto, waxbuu urursanayaa. gabadhan jaamacad bay wadaa, iskuul bay dhiganaysaa, way xirtaa wixii inay dhammayso. marka duruufahaas oo personal circumstanceska ah, duruufaha shakhsiyadka ah, wuu keeni karaa isaguna wixii inay dheeraadaan oo labadii qof ay wixii la gasho sanado iyo wixii la midka ah. waxyaabaha saameynta ku yeelan kara dhererka waxaa ka mid ah qof baa wuxuu raadinayaa qof u dhigma ama isagoo isqaadan karaan, ha ahaado mansabka xagga aqoonta, gabadhu waa PhD, waa master, waxay rabtaa nin kaloo sidoo kale ah, ama ninku waa nin lacag haysta, ganacsada ah, wuxuu rabaa inuu isagoo gabar kale oo iyadana successful inuu raadsado iyo wixii la midka ah. arrintaas marka ku saabsan compatibility-ga iyo isqaadashada labada qof, ama sida hadda inaga Soomaalida nagu badan oo kale reer gaar ah ayay uga dhagan tahay. marka taasoo kale inta uu raadinayo dhacdooyinkaas intuu baaritaan ku sameynayo waqtiga inuu jiitamana waa suuragal. waxyaabaha saameynta kule waxaa ka mid ah shukaansiga iyo guurka ka hor sheekada inay dheeraato qofka emotionally iyo dareen ahaan heerka uu diyaar yahay. qof baanba diyaar ahaynba dareen ahaan, masalan
wuu yar yahay qofkan wuxuu rabaa marka waqti inuu qaato gabadhan waxay jirtaa ama wiilkan wuxuu jiraa 18 wuxuu rabaa laakiin inuu diyaar noqdo emotionally strong uu noqdo ilaa 25 sano marka 18 sano ilaa 25 sano toddobadaas sano u dhaxaysa wuxuu rabaa wuxuu la sii haasaawo wuxuu sii shukaansado hadhow dambe 25 markuu gaaro waxa la dhihi doonaa marka shukaansigayga waxa uu soo socday muddo 7 sano ah waa useless waqtigaas waa iska wareysan doonaa qaybta dambe aan ku arki doonaa maxaa ka soo baxay marka waxyaabahaas oo factorieska ah iyo kuwa kaloo tiro badan oo ku muuqan kara ayaa waxa ay horseedi karaan in labadan qof sheekadooda ama qofka uu raadinayo mar walibaba inuu la jiitamo oo uu la galo muxuu ahaa waqti dheer su'aal isweydiina marka ma mudan tahay inaad ku bixisid 3 4 5 sanadood wax natiijadiisa ay tahay laba inaad guursan doontid inaadan guursan doonin waa 50-50 haddaynan ka yaraynba ma ogid daqiiqad kasta wax isbedeli karaan 5 sano 6 sano waqtigaaga ka mid ah 4 sano 3 sano ma istaahishaa waxa isaga ma istaahila in waqtiga iyada lagu lumiyo oo ay ku sii dheer tahay stress madax xanuun qayli maslaxayn qof kale jacayl oo de muxuu ahaa ma dhamaada ah qarashaad dambi waxaasoo ay ku sii dheer ma mudanta meelaha aan rabo su'aashan aad iska weydiisto waxa ka mid ah haddii uunan mudnayn why iyo maxaan ugu dhuminayaa waxaasoo waqti ah midda kale haddii ujeedadu ay guur u yahay oo sida mar hore soo sheegna qofka muslimka shukaansigiisu ujeedadiisu waa inuu guursado oo qofkan ilaahay calaf ugu daro haddii marka hadafka guur uu yahay diinta islaamku ma nafartay oo ma noo sheegtay haddaad rabtid inaad guursatid waa inaad shukaansataa 3 sano 2 sano 4 sano 6 bilood ma lagu yiri laguma dhihin man istadaaca minkum albaa falyatazawwaj qofka idinka kamid oo awooda ha guursada waa la yiri laakiin guurka ka hor waxa dhacaya waa wax aqliyadaada xigmadaada qawaacidii kale duruufihii kale diinta waxyaabihi awaamirta diinta ay bixinaysay wax sahlaya u hoggaansamaya adigana aadan dambi ku galaynin waa inuu noqdaa oo ma dhihi kartid anigu la igama celin 5 sano sida dadka 5 sano waa jiidaya ma dhihi kartid English Mastery Program fasalkeena online-ka waxaa lagu qaataa isbuuc waliba cashiro isagoo ku salaysan nidaamka caalamiga ee loo yaqaano CEFR Common European Framework of Reference for Language sifooyinka barnaamijkeena waxaa ka mid ah isla xisaabtan joogto ah manhaj nidaamsan xooga oo la saaro hadalka iyo qoraalka kulano toos iyo koorsooyin diyaarsan dhammaan hal madal oo midaysan mid ka mid ah fasalladeennii u dambeeyay ardayda wax ka baranaysa waxa ay ka kala socdeen in ka badan 15 dal laga bilaabo waqooyiga Mareykanka Europe Australia bariga dhexe iyo dhammaan gobolada dalka waa faa'iido ku gaar ah inaad wax la baratid kana faa'iideystid arday sida u kala duwan waxa midaynaya kaliyana ay tahay barashada luqadda Ingiriiska ha ka harto marmarsiyadii ahayd meel aan ku aamino ayaan la ahay barashada luqadda Ingiriiska sababtoo ah hore waxa inoogu aamin horumarinta naftooda in ka badan 45,000 oo kala jooga dunida daafaheeda iyagoo ka faa'iideysanaya nidaamkeena waxbarashada online-ka somvato.edu.so mid kalena aan ku raaciyo hore ayaa loo soo tijaabiyey mar waliba oo uu dheeraado shukaansiga iyo xiriirka mar waliba oo qofba qofka kale uu ka ogaado ceebo iimooyin tiro badan uu leeyahay gaabis nololeed foolxumooyin marka kale aanan muuqanaynin iyo wax la mid ah midna ha ilaabin qof ceeb la'aan ah ma jiro qof nuqsaan la'aan ah ma jiro marka gabadhan ayadoon meel la gaarinba waxaad ka og tahay 10 ceebood oo ay leedahay cudur ay qabtaa xinaaqeedu waa badan yahay sokortaa ku kacda mararka qaar reerku ayadu iskuma fiicna caqligeeda iimaankeedu uu gaaban yahay wamaa ilaa dalik ayaad soo ogaatay laysmaba gaarinba 10 shay baad ka og tahay iyaduna sidoo kale wiilka maxay ka og tahay faqiir inuu yahay ama fataal inuu yahay oo lacagtu iska bixiyo iska baashaalo dumar kale inuu la socdo oo khiyaano intaas oo jeer aqoontiisu ay haysayso maankiisu uunan sarreynin nin karmeed inuuna ahayn nugul inuu yahay 10 shay bay iyaduna ka og tahay now su'aalan ku weydiiyey marka ilaa intay la eg tahay suuragalnimada
qofkan inuu ku dhiirado qofkan ama qofkan inuu ku dhiirado qofkan oo uu ka dhigto ciddii nolosha uu la wadaagi lahaa caruurteeda aabbaheed ay ka dhigaan muxuu aabbahood uu ka dhigan ama isagu wiilasha iyo gabdhaha uu dhali doono hadduu al yidhaahdo hooyadood qofta noocaana oo waxaanoo iimo leh inuu u doorto ilaa intay la eg tahay it's almost zero halis wey waxaasna maxaa keenay waa la isku fogaaday waa la isdhexgalay waxa weye waa la ishorgufay wax kale kuma taqaanida qof waliba qofka kale si fiican buu ugu raftay lamana ogola arrintaas waxaad arkaysaa sidoo kale qof xun liita zaani ah macsilow ah duurka wareegaya ayaa wuxuu ku leeyahay nin qofan guursadaan la ahay wax dadkii aad bay u wada xumaadeen marka sidaa darteed waxaan raadinayaa qof wanaagsan qofkii wanaagsan baa qof wanaagsan hela adigu maad is wanaajisid ma jirto laguma karo isaga wuu halaysan yahay wuxuu rabaa qof wanaagsan inuu helo iyada way halaysan tahay waxay rabtaa qof fiican inay hesho isqaadan mayso walidaalika shukaansiga la sheegayo ee waqtigan dherarka tirada badan keenaya ujeeddo aanan guur ahayn ayaa qofkan isaga ugu dhex qarsoon saxna ma aha waa adduunya aakhira beel by the way u fiirso kaa qarsoomi maayaan wejigooda fiiri ma qarsoomayaan dadka noocaasa shukaansiga ay ku dheeraado muxuu ahaa isheeg isdhexgalku uu ku badan yahay haasaawidu ay u tahay day to day activities oo kale wejigoodii ka muuqataa way bahdilan yihiin dambigaa ka muuqda macsiyadiyaa ka muuqata isdhexgalkiyaa ka muuqda daalkiyaa ka muuqda quursigaa ka muuqda waxaynan ahayn inay iska dhigaan baa ka muuqda marka haddii hadafka shukaansiga uu yahay guur insha allah guurkuna uu yahay calaf uu rabbi bixiyo ogow calafku xoog laguma helo calaf waxaa lagu helaa cibaado alle calafka waxaa lagu helaa adigoo alle subxaanahu wa tacaala u hoggaansama ma helaysid haddii aadan isku hallaynin alle subxaanahu wa tacaala sababtoo ah isagaa qadaray inaad aragtid markii hore baratid gabadhan ama wiilkan la sheekaysatid quruxdiisa aad aragtid indhihii aad ku aragtay iyo dhegihii aad ku maqashay iyo dareenkii aad ku jeclaatay isagaa ku siiyey huwa aclam isagaa og meeshaad u dambayn doontid marka isagii ayaan ku caasinayaa oo wixii uu ii sheegaanan samaynayn gacantiisayna ku jirtaa anugu meesha aan ku dambayn doono iyo qofkan inaan guursan doono in kale balse waxaan ku marmarsoonayaa waan dadaalayaa oo qofkan inaan wax badan ka ogaadaan doonayaa oo 4 sano iyo 5 sano la joogayaa oon marba meel kala dhacayaa ma yanfash caqliga caadiga ah ma ogola walidaalika shukaansiga badan wuxuu la mid noqonayaa khasaarooyin tiro badan oo adduunya aakhira ah oo weli aanan kugu ekaanaynin noloshan hadda aad joogtid suuragal intay la eg tahay su-aashan isweydii ilaa intay suuragalnimo la eg tahay tusaale ahaan inaad guursatid qof 4 sano 5 sano 3 sano aad saaxiib ahaydeen ama gabadh haddaad tahay wiil aad 4 sano wada socoteen iyo qof aadan weli shukaansanin oodan baranin hataa ama kor aad ka taqinin laakiin weli aadan is shukaansanin 3 bilood ay soo socota haddii lagu yiraahdo waad guursanaysaa labadaas qof yay u badan tahay inaad guursatid kana 4 sanaad wada socoteen kana waxaad wada socoteen ama sorry wada socoteen ama wax badan kama taqaanid hadduu fresh yahay laakiin labadooda waa candidate adigay ku rabaan labadooduba diyaar bay ku yihiin maanta kii cusbaana wuxuu leeyahay anigu gabadhan waxaan rabaa inaan iswareysano kii kalena wuxuu leeyahay aniga hadduu alla ku rayo qoftan 4 sano la soo haasaawiye intay la eg tahay suuragalnimada yay u badan tahay inaad guursatid haddaad wiil tahay gabadhee haddaad gabar tahayna wiilkee maxay kula tahay qaybta commentiga ku qor laakiin anigu taydaan ku siiyo 50-50 way adoo waxa laga yaabaa inay kula tahay midkan 4 sano ah in iyo 3 sano iyo 2 sano ah inay xaqiiqo tahay inaad guursanaysid kulli qadarta alle ku dhici doonaan balse midka kan waxa laga yaabaa inaad ka og tahay 20 ceebo oo markii horeba hambari ku taagnaa oo aad raadsanaysay option kale inuu yimaado waqtigan aad isku dhaafinaysay ama aad ku qabtid faa'iidooyin kale oo markaas waayuhu aad isku sii mootinaysay wixii la midka ah
midka kane cusub waxaa laga yaabaa durbaba markaa aragti inuu kula qurxoonaado wow interesting qofkan qof oo at least inta muuqata shakalkiisa maasha Allah 5 out of 5 aan siiya waad is waraysteen maalinta koowaad urursanaantiisa iyo heybadiisa iyo raganimada uu ka hadlayo kale soo u hadlayo kale waad la dhacday bil gudaheed waxaad kulanteen 2 jeer ama 3 jeer 2 jeer ama 3 jeerna telefoon baad isku maqasheen already waxaad noqotay qof enchanted ah waa lagu galay qofkii waxaad dareentay heybadiisii iyo sharaftiisii sumcadiisii waayo waa qof clear cut ah war kale ma rabo wuxuu ku leeyahay inaan gursadaan rabaa waa de insha Allah jaamacaddu way soo dhamaatay ama shirkadaasan ka shaqeeyaa waxaan raadinayaa qof muxuu ahaa isha wanaagsan adigaan ku arkay marka waxaan isleeyahay inuu Ilaahay calaf suu ka ayadaro marka ma garan kara laakiin aan mashquulsan tahay oo qof kale la socotay in kale go'aamo kale aan leedahay laakiin waa jeclaa inaan is wareysano waa diyaarba waa diyaar hadalkiisu waa cad yahay raganimo ka muuqata wax kasta waa kaas adiguna ku soo celiyo option ku leeyahay bal isqiimee inaad diyaartay in kale gabadhaas inay xidhiidhatay u badan tahay oo kii 4 sano iyo 5 sano jabhadka isla ahaayeen oo ay 25 ceeb ka og tahay risk inayna ku qaadan karin baa suuragal ah oo istiraado Allah ilaahay midkan diyaarka ah ma ilaahay inta iska tala saarat aad midka ilaahay kan ku gash kan ilaahay way ku tala saaran kartaa sababta wax badan kama oga kaas laakiin ilaahay ku tala saaran mayso waxay baleeda ma waxaanan ogahan ku gali karaa wal iyadu billah ilaahay subhanahu wa ta'ala waxba lama aha qalbiga qofka bini aadamka inuu saa u gadiyo bayna usbuucayn min asabi'i arrahman ayu saas yuqallibuha kayfa yasha inuu gadiya suuragala imisaan aragnay 5 sano 6 sano 7 sano 4 sano kuwi isla socday kadibna ay ka raacday wiil yaro shalay aragtay amaba uu guursaday isla markiiba gabar ay reerka u soo jeediyeen oo la yiri gabadha ay dad dhashay ee ka timid muxuu ahaa ii sheeg Scandinavianka ayaaba diyaar ahba oo tiri wiilkii in adeerkay in abtigay anigaaba qaadanaya boom 4 sano 5 sano lagu kala tag murugo wareer su'aalan ku weydiiyay markii su'aashii hore hadii adiga ay ku ahayd waa Allah huba ta 4 sano ku qaadan lahaa yeelkada mushkil ma laha taas waa fikirka lagu kala duwanaan karaa laakiin su'aalan ku weydiiyo hadii sidan dambe ay u dhacdo hadda aniga aan ku sheegay oo 50-50 ay tahay gabadhina ay dhinaca kala raacdo waxay doontaba ahaatee aaway waqtigii lumay aaway lacagtii luntay aaway madax xanuunkii tirada badnaa aaway raali gelintii toogmadii baryadii aanan xad ka lahayn oo ihaano heer aad gaartay ay ku muuqanaysay haddaad gabar tahay haddaad wiil tahayna sidoo kale aaway isdhaxgalkii aaway wixii dambi ka dhashay aaway kitaabkaaga آخر اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا مركل قليه وحا كوغو قرن أو هولاء حقي آذين آوي أوكي عرفنا ونن كوغلين لغاية بينا ذا حبكي هلين آوي تاريخ ذيني إسلا الصعودك إي أوغايين طبنانك قف الباتمية قف آوي سو إذنك اللي اسكو كين أوغا معها حافظون إذنكو شيكي سنجرتي لباتمية قف إسكول كورن عان كاهيدين جامعة دورن عان كاهيدين آوي تاريخ ذي ما أنت محا قدام بيا وحي راعدي هبلو آوي ماذا حنونكي ترى بدنا أوكي أديك نبكي كسوقاري آوي وحصلنا وحكدرن سيلف استيم كاجي هميلوينك أد لهيد وقبك أد لهيد أردن مالين تصدق كل عياب باش وجري why because مركي هربا واحد كتاجنيد بابل حنبو نكدك تادا هيد بور وكتاجية ميانا نديه كرين خساروين مثل هالخساروين of course it's خساروين okay خساروين واي ما أهان هالخسارة كلية وحيابها مركا لو باهي وحكم إذا طريقوين كأد أمريسيد أديك جورك أما هور مركا نفتاضو شو كان ستربضن وحبكو معها بوس كوما بلا هم بدي English Mastery Program فصل كينا أونلاين كا waxaa lagu qaataa isbuuc waliba 10 isagoo ku salaysan nidaamka caalamiga ee loo yaqaano CEFR Common European Framework of Reference for Languages sifooyinka barnaamijkeena waxaa kamid ah isla xisaabtan joogto ah manhaj nidaamsan xooga oo la saaro hadalka iyo qoraalka kulano toos iyo koorsooyin diyaarsan dhammaan hal madal oo midaysan mid kamid ah fasalladeennii u dambeeyay ardayda wax ka baranaysa waxa ay ka kala socdeen in ka badan 15 dal laga bilaabo waqooyiga Mareykanka, Yurub, Australia, bariga dhexe iyo dhammaan gobolada dalka.
وفائدة كو قارة إن وحلا برتد كان فائديستد أرضي سدا أكل دوان وحمدين يكلينا أي تهي برشاد اللغة الإنجليزية هكا هرتو مرمرسية دي أهيد ميل أنكو آمنو أيان لا أهي برشاد اللغة الإنجليزية سببتو أهورا وحا إنوغو آمي هرمرين تنفتوضا إن كبضان أفرتن يشان كون أوكل جوغ الدوني دا دافع هذا يغو كفائديستان النظام كينو وح برشادة أونلاين كا somvato.edu.so waxaa waqtiga iska luminin ragga gaar ahaan anigu waxaan leeyahay shaqa kuu taalla gabdhaha aanan u oolin waa inaad lugaha isku aadistaa waa inaad dad iska dhigtaa waa inaad isdiyaarisaa waa inaad hanti abuurataa waa inaad guri muxuu ahaa alkuntaa waa in 200 shay baa kuu taalla gabadhan aanan u oolin gabar yahay adiguna gabadhii 30 sano 40 sano 50 sano Soomaaliyeed nooleed ma tihid gabar aqoon yahanada waqti badan lagu soo bixiyay lagu soo dadaalaa tahay adduunyadii hore ma aha adduunyada way adag tahay way dhib badan tahay dhungooya way uu ku lugoynayaa ma isku tashatid isku filnaatid hadduu ilaahay caruur bali ku siiyo soo martay inuu kaa siiyo mid qiimo leh qiyam leh diin leh iimaan leh nin rag ah wiil ma aha okay nin raga laga wada rag ayaa laga hadlayaa laakiin nin ma aha kaliya waxa ay u baahan tahay adigu nin qof kasta nin ah oo dee xubin taran rag leh that's it laakiin raganimo ayaa ah waxa aad raadinaysid raganimadaas qofka isaga ahi oo aad dooranaysid soo ma ogid ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu isaga kuu doori karo in ka badan intaad ictimaadi lahayd xooggaagii caqligaada man ictamada calaa nafsihi qal sideedaba qofkii naftiisa ictimaada caqligiisa ictimaada xooggiisa ictimaada waxna uma taraan wayna ku yaraadaan isagana wuu khasaaraa hore ayaa loogu jabay arrintaas dhiiqo ayaad lugaha kula jirtaa dhiiqo ayaad lugaha la sii galaysaan dhalinyaro laydinkaagama sheekayn oo dee odayaashu waa laga yaabaa inay wax badan idiin sheegin laakiin wuu yar yahay oday mid uu ku soo jabay sanado haysta una caruur dhashay nin walba derbigu madaxa intuu kusoo garaacay 5 sano 6 sano 7 sano ayaa mid bil iyo 2 bilood la socda dhagdhag ilaahay intuu calaf ugu daray bum tobaneeyay intay dhashkaala arag noloshii saxda ahayd markaasuu galayba tii aaway 10 sano iyo 5 sano laga soo liimi iyaduna mid kale ina aqoonin oo cusub ayaa bil iyo 2 bilood bum intay ku qaadatay waa taas aroostay waa kaas kor baa la iska wareystaa ha salaamu calaykum salaam fiican alxamdulilah ciyaalku sidee ku yihiin ha la idinkagama sheekayn la jab idinku laakiin dhiiqadii baad lugaha hadda la galaysaa anigu waxay idin diidanahay dhiiqadaas weeye waan idinkaga sheekaynayaa waa idin sheegayaa bilooyin haddii ay xiriirku uu qaato kadib markaad guur diyaar u noqotid oo aad lugaha isku aadisatid bil iyo 2 bilood iyo 3 bilood way ka badan tahay in qofka kan aad ogaatid waxa uu yahay talada koowaad waa maxay mar alla markaad guurka soo damacdid ilaahi subxaanahu wa tacaala tala saaro u bandhig isaga ha kuu dooro isu hoos dhig oo waxaad tiraahdaa yaa rab acinnii inaan gabar wanaagsan doorto igu caawi wuu jecel yahay addoon shabaab dhalinyaro ah dhoorsooni raadinaya rabbi subxaanahu wa tacaala ma hungowsiinayo gabadh sidoo kale rabta wiil fiican ma hungoobayso markaad u bandhigtay kadibna dadaal ku dar marka raadi xageed ka raadinaysaa meelaha fiican yaad waraysanaysaa dadka wanaagsan marna u raadin maysid meelo xun marna kaa geli mayso meelo aan munaasab ahayn ha ilaabin raaligelin alle iyo horumar nololeed laguma helo wax xun oo lagu raadiyo dariiq qaldan intaa kadib waxaa lagu sahli doonaa meelaadan filaynin qof dariska ah gabadh meel aad mari jirtay joogtay xaafadaad maalin walba hormari jirtay ilaan dheeman baaba ku duugnaydba rabbi baa ku soo leexinay ishaade tanna ka warran baa lagu leeyahay maalin dambaad arki doontaa oo noocan meelahay ku jirtay yaa meelahan baan mari jiray manaaba yaa ha indhuhu waa indhihii laakiin hadda indho rabbi subxaanahu wa tacaala uu wada wey basar bay ahaayeen oo hadda basiira wax lagugu tusi qalbigaagii baa arkay hanuunka rabbi baad haysataa
markaasaad waraysanaysaa macluumaad yar oo xogaad raadsanaysaa ayadii baad la kulmaysaa khalaas bismillaahi baad leedahay noloshiina saxda jacaylka saxda waxa idinku isugu kiin jiro waa marka aad isu xalaalowdaan wixii ka dambeeya waaba intaaba gabigeedba waa intaaba 5 sano iyo 6 sano iyo 10 sano oo madax xanuuna no madax xanuunka saxda ah ha ku bilowdo markii reer aad dhistid odagaaga madaxu ka xanuujiyo waxa ka dhibi mayso duqdaada madaxa ay ka xanuujisan waxa ka dhibi mayso laakiin wiil daba dhuuban iyo gabar hadduu alla ku roon yahay daba qaawan marka ay madaxa ku xanuujiso oo banaankaas ay ku joogto maanta dhan kibir iyo muxuu ah ishaq xinaaq aan meel jirin adigu aad ku mashquulsan tahay oo shaqadaadii ku dayacday waxbarashadaadii ku dayacday kartidaadii ku baaba'day khalaas guri lagu waaro aroos farxad leh caruur baari ah dhaxal waara laguma helo in loo maro dariiq shukaansi tiro badan oo horseeda dunuub tiro badan oo horseeda khasaarooyin tiro badan iyo cara alle laguma helo haddaad rabtid taa dariiq kale leedahay dariiqaas waa la yaqaanaa halkaas mar shukaansigu culummada ma aynan diidin qofku wuu shukaansan karaa wuuna iska eegi karaa wuu la muxuu ahaa isagoo xuduudda ilaalinaya gabadha uu guursanayo wiilka ama xuduudihii waa inaa ilaalisaa xageed la fadhiisan rabtaa maxaad isu sheegaysaan maxaa la isu dirayaa maxaa intaasoo su'aalaha jirta qofkii raba inuu dariiqa saxda oo diintu qaado waa inuu bartaa baro oo warayso culummada midda kale shukaansigu wuxuu horseedaa jacayl qaab daran oo qaraadh oo loo dhinto loo rafaado ayuu horseedaa oo waxaad arkaysaa qofkiioo bahdilmay muuse ismaaciil qalinle inuu ahaan u malaynayaa heestiisii waxay ahayd jaxiimi iyo jacaylba jahannamo waa ka kulul yihiin jaxiimiyo jacaylka jahanima ka kululo waxjaliil ku beera ololka la jiciirto ifka joogi maaye marka jaxiimo iyo jacayl buu isgarab dhigay jahannama waa ka kulul yihiin ruuxii jaliil ku beero oo qofkii ilaahay uu geliyo oo dee lagu imtixaamo nolol kala jaciiranay tire ifka joogi maayo qof ifka ka taga camal uu ku sawir marka xataa fanaaniinteennii iyo abwaanada iyo way ogyihiin wayna dareemeen qofku mar hadduu jacayl garo jacaylku fiicana jacaylka laga hadlay kii guurka kadib xaaskaagii oo aad jeceshahay waxba dee laba qof oo waxaaba tihiinba waa kan laakiin bannaanka marka jacaylku uu ku yimaado la isheli laayahay waa wareer maanta oo dhan baad waxaa ku jiraysaa jaaheeda nuur kale baa ijiidanaya iyo nuurkeeda ijiidanayaad leedahay nuurka hadduu xaafadda kuu joogana that's it done nuurkii xaafadda hadduu joogo sheekada waa isku dhamaatay laakiin maanta dhan haddaad dee dhan dabagaaladaba ordaysoo leeda alla ile halkaa way alla ile halkaa way halka ma yanfaash marka shukaansiga noocaas oo kale wuxuu horseedaa jacayl indhalaan waa loo jiradaa waa lagu qiimo beelaa valueskaaga oo dhan baa ku dhacaya taa weeye marka midda khasaarooyinka tirada badan kuu sii horseedaysa oo inay dhiibtido sheekooyinka akhrisanaysid wixii tirada badan waxyaabaha saamaynta negative-ka oo dhibka badan dadka ku leeyahay waxa kamid ah sidoo kale dhageysiga heesaha jacaylka god bay ku gelinayaan god anigu hadda meelaha maraya mararka qaarkood hees markaan meel sare ka maqlay waxyaabahaas iyo qalbiga bini'aadamku waa cajiib uu dareemayaa haddaan iska qabanin way jiidanaysaa isla markaas waa inaad iska qabataa dhegtaada inay markuu soo dhacdo laa baas laakiin haddaad dhaqan ka dhigatid oo aad u damaacdo oo u kastid mar walba oo dhagaysid taas way mid mushkiladda marka ilaahay subxaanahu wa ta'aala khayrka inoo waafajiyo dhalinyarada allah inoo asturo dhalinyarada allah aruuriyo gabdhaha iyo wiilasheena qiimaha badan weerar waxa ku socda cir iyo dhula oo 24 saac xaqa allah tuso diintooda allah waafajiyo guurka allah u fududeeyo dad tiro badan oo awlaad fiican dhala oo lagu faano inaan wada noqono ayaan rabnaa hada wabillahi tawfiiq assalaamu calaykum